السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لما نقيات يوتيوب سلامي عشان wuxuu ku saabsan yahay su'aal badan oo aad nala soo weydiiyay aan waqti u helin inaan ka jawaabo ayaan doonayaa si duqsiya badan taas oo ah mirrorgu hore waan u sharaxay screenka inuu ka soo saaro adigoo isticmaalaysid cable USB marka ardaygu wuxuu weydiiyay waxay tahay sideen u isticmaali karaa wifi ga ayaa dhibay si sahla inay i tustaan ayaan rabaa insha Allah bidna karin waxaan rajeynayaa aad uga faa'iideysan doontaan kaasoo ka caawinayo marka mirrorgu ina shaashadaada mobilkaaga screenka dhex isticmaashid si toos ah ama chatting ama waxaad inaad samaysid ama casharo daartid inaad dadka ugu sharaxdo marka awood waxa u yeelanaysaa inaad dadka u faahfaahisid sababtoo screenada shaashadaha la soo saaro inta badan waxay ka caawinaysaa in aad ku practice samaysid mobilkaaga screenka adoona mobilkaaga taabanin ayaa cable aan isticmaalaysaa ama markaan wifi sababtoo badanana waxa dadka dalbada kamid ah ardayda rabaa inay video ka sameeyaan in apps-ka Android-ka sida loo isticmaalo inay ka sameeyaan marka insha Allah bilaawno sidaan wifi u isticmaalnay marka sida u isticmaashid marka USB oo jeeda markaan wifi ayaan isticmaalinaa si wifi loogu xiro marka waxaan u baahanahay inaan barnaamij helno QR code scanner kadib soo scan ugu sameeyo koodkan kadib waxaad leedahay Google Play Store ka gal kadibna waxaad soo downloadaysanaysaa kuwan oo brand code scanner iyo QR code reader labada nooc ayaa mid gaar ah soo downloadaysanaysaa labadaba waa tijaabiyay labadaba si fiican ay u shaqeynayaan kadibna programkii ayaan furnaynaa maadaama hore noogu shubnay ayay installation ayaad ku soo sameynaysaa marka sidan ayuu labadaba kugu soo baxaa barcode iyo scanner iyo QR and barcode kadibna markaas sidaan samaysid kaamirada ayaad ku shidmayso isla markii koodkaas ayaa waxay ku aadinaysaa koodkaas marka scan ku samaysid koodka qabsado si toos ah wuxuu kuu sheegayaa failkii aad u baahneed oo screenka kugu xirnaa wifi-ga si automatic ah asaa linkiga ku soo diraayo marka si fiican u aadisid waxa lagaaga baahan yahay afarta koono waa in kaamiradaas meeshaas iftiinkii ku aadan tahay mal rabo meelaha mugdiga inaad ku aadisid dhaxbartankaas waa in iftiinka ku aadan tahay isla markaa ku aadisid waa ujeedaa linkiga si toos ayuu kugu soo qabsaday kadibna linkiga ayaad lagaaga baahan yahay inaad soo download garaysatid sababtoo linkan wuxuu kugu sheegayaa in waa failkii APKI waa failkii la soo degi lahayd kadibna waxaad leedahay download ku dhufo kadibna just once ku dhufo ama always mid kaartid ayaad ka dooran kartaa si uu kugu soo deji failka marka wax yar sugtidba failka si automatic wuxuu soo qaadanaya qaybta downloadka ayuu imaanayaa kadib markuu downloadka imaado ujeedaa failkii APK-ga si toos ayuu kugu soo degaa qaybtii downloadka ahay failkana ujeedaa mobile go ayaa ku yaala .apk failka magaciisa waaye sababtoo Wondershare ayaa la shirkada kaasoo ka caawinaya mobilkaaga inaad screen kula xirtid markii downloadka dhameeyo kadibna waxaan bilaabanaa insha Allah bidna karim inaan installation ku sameyno failkii si oo noogu xiro mobilka kadib waxay sugaysaa kadib wuxuu ku leeyahay open fail ayaan leenahay kadib marka open fail laadid haddana waxaan leenahay install kadibna waxaan ku soo saarayaa sidaan kadib next ayaa leedahay sida caadiga APK loogu shubo next kadibna install ayaa leedahay sidaad ugu shubtid waxaa laga yaabaa inuu ku dhaho qaybta guudku geeyo qaybta guudka iska soo sax oo unknown source-ga jeeka soo saar laakiin aan mar hore igu saarneen kadibna failkii sidaas ayuu kugu shubay mobile go-ga kadib double click ayaa siinaysaa mobilkii ama hal click see kadibna waxa ku soo furmaya barnaamijkii mar labaad oo haddana kaa dalba doono in aad mar labaad haddana koodkii kaamirada scan ku samaysid markii hore waxaan isticmaalnay barnaamij kale laakiin markan asiga ayaan si gooni u isticmaalinaa qaybta koona ayaa tegaysaa click ayaad ku siinaysaa kadibna wuxuu koodkan ayaa u baahannahay sidaan inaad u scan garaysid QR koodka kadibna okay ayaa leedahay kadibna isla markii kaamirada ay hadda mar laad ku shidmayso okay markaa dooratid kadib kaamiradii ayaa mar laad ku aadinaysaa sida koodku u aqriyo computerkii mobilka sidoo iskugu xiro IP address ahaan si toos ah iskugu xiro isla markaa ku aadisidba si toos ah oo jeedaa koodkii uu soo qabsatay computerka magaciisa si toosana u jeedaa magacii ku qornay ayaa mobilkii noogu qoran click ayaa siinaysaa si uu ugu xiro IP address ahaan wuxuuna isticmaalayaa wifi-ga kadibna ujeedaa si automatic ay ugu xireen marka waxaan rabnaa inaan kala ogaano ardayga waxaa laga yaabaa inuu isdhaho weli cable-ka ayaa ku xiran waa run cable-ka ayaa ku xiran sababtoo cable-ka wuxuu ku xiran yahay tahay waxaan isticmaalaynaa mobile zenkan sidaan kaamirad ahaan u isticmaalno
هذا وجد مركا واي فاي استعمالنا disconnect هذا كدقنو ستوص أي نوجو قدك وجد واي فاي هنوجو حرن كدي بوص أي صوري من النكاز كدي بنوح وجد يو اس بي وكحرية برامج كان يحرية إن موبيزينكا مركان كحرو أيام حسمينها أوكي يعني لا كدين كيبل كان كسيبه برنامج كذا مركان كيبل قوميتر كبحيو سي أوتوماتيك وجد كم يجر هدر marka haddaan soo furo mataqaanaa mirror gowga haddaan mar laad usoo noqdo uu shaqayna waa ujeedaa wifi-ga ayaa ku xiran sababto wifi-ga wuxuu ku fududaynaa cable ahaan inaad isticmaalin si toosa sidaana u sahlan haddana waxay ku xiran tahay internetkaaga hadduu fast yahay fast ayuu u shaqaynaa hadduu loo yahayna xoogaa yar culeys ayaa ku jiro marka insha allah midnaakin waxaan maleyni doonaa inaad ka faa'iidaysan doontaan muhiimadan waxay tahay qof kastoo ardaya su-aashiisu weydiiya intaan awood u leeyahay in kaga jawaabi doono insha allah midna kariim su-aashiina waa muhiim commenti like share inaan la qaybsataana waa muhiim sababtoo ardayga dambe oo imaanaya ayaa ka faa'iidaysan doona insha Allah bina kariim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa jazakumullahu khairan.